دوبني يا دفور حمو way ka dhamaan bal dafur xumadan iyo dhiga hadalkan gaalay arka ilaahay wala ku dhaariyay qoodii xiraday ma waxaas wax loo gogsan karadii inaad ilaahay waan ku dhaariyay waxaas wax loo gogsan kara biya qoodii xiraday bal eeg waxay leedahay doobni iyo dafur xumo way ka dhamaan dafur xumadan nimadii waxaad noo hortaagan tahay dafur xumadan way ka dhamaan oo nin dhalaalayo dhimac weyn bad noqon xuduud weyn oo wad kala baxaysa si kale kuma garatidi haddaan seexdo eelka iyo dhaxanta dhaxyaray ka dugsado maanan dhubteen haddaan dharka kula huwado dhinaca iyo dhabtaada haddaan seexdo deelka iyo dhaxanta dhaxyaray ka dugsado maanan dhubteen haddaan dharka kula huwado qoodda iyo xirada iyo xiniinta waa kalaam nin weyn bishaar wadani wuxuu leeyahay dhubnida iyo dhafoor xumada iyo ilgo'a iyo basaaskan adiga arkaysidba waa anigoon adiga dhinacaaga jiifin oon dhabtaada ku gamin oon dharka kula huwanin qoodii xirada dhaxan iyo kalinimo ayaa idishiw leeyahay aad iyo aad sidii caadada inoo ahayd dhaanta ayaan soo qabanay cusub oo hadda dabka laga soo qaaday asxaabta qaarna ay soo codsanayeen waad ku mahadsantihiin codsiyadiina sida aad ila socodsiinaysaan hadba dhaantada xitaa waxa laga yaabaa aan dhaantada arkin inaan commentiga markaan ka arka raadiyo bal dhaantada dadka ay sheegayaan marka aad ayaad u mahadsantihiin dhaantadaasi dhaanto cusub oo waxay ahayd hadda dabka laga soo qaaday waxaana inoogu luuqeynayo ama inoo qaadayo abwaanka weyn bishaar wadani iyo sidoo kale gabar laftirkeeda hadda doonaysa in ay afgambi ku qabsato gebi ahaanba dhaantada dhanka koonfur ama xamarba ay afgambi kula wareegto waa fahma ilays gabar la yiraahdo ayaa inoogu luuqeynaya ereyadaasi ayuuna ku bilaabay haddii ay tahay daawada markii koobaad oo channelkana aragto waa codsi subscribe saar gambalelkana furo si aadan u seegin muuqaalada xiisaha leh ee halkan soo gelinay maalinlaha haddii aad horaan ula joogtayna aad ayaan kaaga mahad celinaynaa saaxiib qaali ayaa tahay muuqaalka asxaabtaada u sheergare mahadsanidin keena qaybaha xigo ayaanu isla arkaynaa دوبني iyo dhafoor xumo way ka dhamaan nin dhalaalayo dhumuc weyn baad noqone hadmaan dheegow jacaylkeenu dhagax dhignaa dhaga hadal free ee weeyaan kaasi fahmay waa dhaga hadal free ee qoodii xirade aniga bishaar wadani dhaga hadal kaasi ka diidnay aduu bishaar wadani kugu qaatayse ani ka diiday qoodii iyo xirade xininta دوبني يا دفور حمو way ka dhamaan bal dafur xumadan iyo dhiga hadalkan gaalay arka ilaahay wala ku dhaariyay qoodii xiraday ma waxaas wax loo gogsan karadii inaad ilaahay waan ku dhaariyay waxaas wax loo gogsan kara biya qoodii xiraday bal eeg waxay leedahay doobni iyo dafur xumo way ka dhamaan dafur xumadan waxaad noo hortaagan tahay dafur xumadan way ka dhamaan oo nin dhalaalayo dhimac weyn bad noqon xuduud weyn oo wad kala baxaysa si kale kuma garatidi haye ee hadmaan dheego jacaylkeena dhagax dhignaa hadiiba aad doonaysid in dhafoor xumada iyo dhumnida aad ka baxdid oo nin cayilano weyn oo cildo weyn aad aad rabto inaad noqoto si kale kuma garatidi bal adigu soo gabagabeeyo goormeed ka rabtaa inaan jacaylkeena dhagax dhigno qoodhi iyo xiraday warma masaajid baa kala dhax dhigo wariyaa ilaahay iyo rasuulkii bal waaya kalgacaylkii dhibayeen la dhooloon dhoolad dhaqsayga hadhaydaya dhinacaas ceel bardi waa inahan dharkayn ley aroosko u dhigo kalgacaylkii dhibay ee la dhoolon dholaad dhaqsa iga dhaydaye dhinacaas ceel bardiya waa inaan dharkayn ley aroosko ugu dhigo hadda wuxuu leeyahay maadaama aad niyadda ii dhistay oo tirinayo dhafoor xumo looma dhinta ileene qoodhi xir oo iska sidaas moogtahay dhafoor xumo looma dhinta ileene wax ku jafan baad leedahay anaa ku jafan ku hagaajisanayay ya nin ado weyn qurux badan oo weyn oo dahay saas oo salaam alaykum wad noqonaysaa si kale kuma garatide ameen arooskeena ka dhiganaa bay tiri moogta ama jacaylkeena goorman dhagax dhignaa markii wuxuu yiri kalgacaylkii dhibay ee lan dhalay ee sida iyo dhafoorka yeelay ayaa dhaqso iga dhaday uga daweysay marka waa inaan dhinacaas ceel bardiyo waa inaan maxaa dharkeenley aroosku ugu dhigo halkaas waa inaan maxaa gurbaanta
dhulkii muxuu ahaa hidaha iyo dhaqanka iyo dhaantada ceelbardi waa inaan aroos kuugu dhigo oo halkaa gaafka nalooga tumo harcad si kale kuma garatid bal waa yahay ruuxaniyo jirkaygay ku dheehanto waa halkii laygu dhalay in ku dhaqaaq bartay inka bardheeray caabud waaqii dhawe ruuxa iyo jirkaygay ku dheehanto waa halkii laygu dhalay in ku dhaqan bartee dhanka baar dheeray iyo caabud waaqii dhawe waxay tiri in adeerow bal ceelbardida horta inoo dambayse waa ku jeclahay oo jacaylka hadda waa isla fahanay waa isla meel dhignay oo wixii baa hadda waa ahay adigaan dhafoorxumadan kaa baabi'ini anigana iskaabulnimada iyo nin la'aantad iga bixinaysaa bal waa yahay ceelbardida u yarkaadiyo dhanka baar dheere iyo caabud waaq ii yar dhawee lafaha iyo dhuuxay igaga dheer tahay oo dee kama maarmi kare wariyaha ilaahay rasuulka yaqaan waa yahay isagana xagga ha kasoo durgaanana ka durgo meel laba dhaxda aroos ku dhigta si kale kuma garitid qoodhi xiradi wariyaha ilaahay laakiin halbaad yeeli kartaan idinka fuudba sanadbo muxuu ahaayey meel baad degi kartaan sanad baar dheere sanad caabud waa sanad muxuu ahaayey dharkeenley sanadna ceelbarde noloshiinaba safar caruurta midba meel ha ku dhashay midba gobol ha ku dhashay si kale kuma garitid yaa ka wanaagsan wax la heli kara ma ah waa hagaag dhulka quruxda badan ee dhashay waa mayo NFTyo dhan iyo dhaanan iyo after EDS baan dalxiis kugu soo dhaxmarin dhulka quruxda badan ana huba inay aad qurux badan tahay ee dhashay waa may iyo NFD oo dhan iyo dhanaan iyo afdheer DDS baan dalxiis kugu soo dhaxmarin waxaan ku sheegahay cunugba meel ku dhala cunugba meel ku dhala adeer gacali hadad marba mutafaq noqoteen oo ninka dhafoorxumada uga baaysa gabaray adiguna iskaabulnimadii iyo dihaaya uu kaaga baahayo si kale kuma garitay qoodhi xirade isku raaca oo cunugba meel ku dhala cunug DDS ku dhala mid NFD ku dhala mid baar dheer iyo gada ku dhala mid muxuu ahaa ceelbardi iyo ku dhala muxuu dharkeenley ku dhala si kale kuma garitay ilan muxuu ahaa dhulku yar kala fogfog yahay sheegaysaan ma ogtahay hal deegaan ma aha uu yar kala fogfog yahay saas darteed isku raaca inaad midba ama da'ba aad gobol ku dhashaan qoodhi xiraday waa hagaag deeman ciideena waacan maba kala dhacdo waan jeclahay dhammaane waygaga dhegto waan ku dhartaagado ina dhaafaan necbahay deeman ciideenna wacan maba kala dhacdo waan jeclahay dhammaane waygaga dhegto waan ku dhar deeman ciideenna wacan maba kala dhacdo waan jeclahay dhammaane way igaga dhegto waan ku dhaartaa gadee inaan dhaafaan necbahay waryaa ilaahi iyo rasuulka yaqaan waryaare gabadhi waxay leedahay anu gaday igaga dhigantaniyo hadi waaya bishaar wadani oo boorsada intaad qaadatid boorsada intaad jiidatid walaalow dhafoorxumada lagaaga bee annaga halkan wax nagaga baale waryaa ilaahi yaqaan annaga wax nagaga baale haddii maanta wax kaaga baa wada hesho dhafoorxumadaas waa yahay intaad boorsada qaadatid raac gabadha si kale kuma garatid qoodhi xirad raaco meesha ay kaga dhigtay ugu tagday baar dheer ay kaga dhigtay leedahay gadee halkaas iyada gaafkiina lagu tumo si kale kuma garatid way kaga dhigtay seel yeeli kaga dhigtay adiga meesha baad DDS wax la warwareegaysaa NFD ma warartaba waxay leedahay dhulka ma kala dhacay laakiin halkaas ay kaga dhigtay oo inaan dhaafaan necbahay halkeeda ugu tag oo halka ku dhax dhiga jacaylka qoodhi xirad waa hagaag dhenkiyo wajigan dharan dheerarkiyo hoysteelkaaga gortaan dhowraba kolba waxaan dhahayo iska yaraa dhunkada midabkaagan dhiinkaaga iyo wejigaagan dharan dherarkiyo isteelkaaga goortaan dhugtaba kolba waxaan dhahaya iska yara dhunkada waryaare wixii buu doonayaa inuu ku dhegade waa doobnima dhafoorxumadaas u gashay وانا doobnimo dilootay wixii uu doonayaa inuu iskaga dul degaba oo iska daaqade daaqin
lagugu dhufay koo lagama dhahay ka fog adeer ka fog hawshaas hawl laga yeelahay ma qoodhi xirad wuxuu leeyahay midabkaagan dhinka ee quruxda badan iyo wajigaagan dee dhulan ee quruxda badan ilaahay sida qurux badan u suureeyay dheerarkiiyo stylekaagan iyo libiskaagan iyo isla ekidaadan markaan dhugtaba kolba waxaan isdhahaa ee iska yara dhunka waayahay bal halkaasi maxaad ka tiri dhawaaqiyo codkaaga dhagaha u roon daayahayguna aragtidaada kamaba dhargaan oo nimaan kuu dhigana dhabta weli ma arag qoodha iyo xerada iyo xiniinta way kala duldhacday si kale kuma garatidi waxay leedahay dhawaaqaaga iyo codkaaga waan dhegtaagayaaba waan dhegaysanayaa dhegay u roon tahay qofka hadalkiisa aad u xiiseynayso dhegta muxuu way ku raaxaysataa moogta dhegtaad u dhegaysaadii waad dhegaysanaysaa si kale kuma garatid muxuu soo wadaa muxuu dhihi rabaa qoodh iyo xerada soomaadan garan oo nimaan kuu dhigana dhabti weli ma arag weli intaan adduun soo jooga nin adoo kale ah indhaha maba saarinba waa hagaag gaabil yahay faceeda wax dheeree dhuldhulan ee dhankii loo dayaaba meel la ahaan dhinay marwaanka dhigtee yaakhay isoo dhowow dhabeel yahay filkeeda wax dheeree dhuldhulan ee dhankii loo dayaaba meel la aan dhinay marwa aan kaa dhigtay yaakhay isoo dhowow qoodha iyo xerada hadda waa si toos ah isku ballansanayaa si toos ah ballan si toos ah cad weyn taas oo hargal cad hadhow adii doontaan waxba kamaan ogeene hawshaasi maxay bishaar wadani iyo fahimo horta ba waa sidii xan ana soo wacaysaano ni horta labadaas qof say isku yihiin war ma kaysa laakiin hadda inaad ogaataan raadi oo halka ballan si cad weeyaan oo hargal cad soo ma fahmi waa ballan si cad oo hargal marka dhabeel yahay filkeeda wax dheer dhulan ee dhankii loo dayaba daliil aan lahayn dhan kasta oo loo fiiriyo daliil ma dabeecad qurux itaal joogsi wax isku dad wax oo dhanba qurux ilaahay siiyay marwa aan ka dhigtay yaakhay isoo dhow wile marwa aan ka dhigtay dhib male waan ku heshiinanay gedida ay kaaga dhigtay laftirkeedaan aroosku ugu dhigi tay isoo dhow soo dhawaashaana laga helo waa hagaag ubad aan ku dhalo cishqi dhaxal galiyo guri wada dhisno xaaji aan kaa dhigtay hayga dheeraan marnaba iyaduna waxay leedahay diyaar baan ku ahay hayga dheeraan dii asla meel dhigna wixii isku fahanay waayahay hadda maadaama gabagabadii guraanadkii inkastoo weli aysan muxuu cadaynin gobolka la isku raacayo laakiin waxay u eg tahay bishaar wadani maadaama tii uusan jawaab kale ka daba keenin ama su'aal kale ka daba keenin waxay u eg tahay in gobolka Gedo galbiska arooska halkaasi ay noqon doonto lugta hor noo soo mariyo ay raacayna qoodh iyo xerada si kale kuma garatay Soomaalida garan marka hadda waa muttafaqun calayhi waa la isku raacay jacayl midoobay weeyaan xaaji aan ka dhigtay marwa aan ka dhigtay Soomo waxaan la hortaagantiin marxaati baan ka nahay say wallahi marxaati ka ahaada waa hagaag dhulka quruxda badan ee dhashay waa mayo NFT oo dhan iyo dhaanan iyo after EDS baan dalxiis kugu soo dhaxmarin deeman ciideena waxaan maba kala dhacdo waan jeclahay dhammaan waygaga dhagto waan ku dhartaagado ina dhaafaan nacbahay fahmay ilays halkaas ayay kaga dhigtay halkaas ayaan ku galbinaynaa oon aadinaynaa oon u fasaxaynaa oon u daba qulqulaynaa si kale kuma garatid Soomaalida garan qoodh iyo xerada xiniinta deeman ciideedana wacan maba kala dhacdo dhammaan waan jeclee way igaga dhigtay laakiin Soomaalida garan oo dhanka gedaan jecelo inaan dhaafaan nacbahay si kale kuma garatid qoodh iyo xerada halkaas gabagaba iyo muttafaq sidaas ku tahay wadayaal intaas wax ku soo koobaynaa falanqayntii koobneed ee ku sameynay dhaantadani jacaylka ah wadaniyada ah labada fanaan muxuu ahay abwaan bishaar wadani iyo sidoo kale fahmay ilays ay nagu luuqanayeen falanqaynteena xigta intaan ka gaarayno tan iyo kulankeena dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh